maalintii toddobaad ee xisbi xaakimka talada dalka hayo kulmiye uu lahaa ololaha doorashooyinka oo maanta ku bixinayd ayaa si weyn looga dabaaldegay deegaanada Madheera hoos yimaada waxaana isku soo baxay boqolaal taageerayaal ah oo ku dhawaaqaya halkudhigyo yar ay ku muujinayaan taageerada uu deegaankaasi ku leeyahay xisbiga talada dalka hayo kulmiye taageerayaashan waxaa kala qayb galay maariyo hore dekada Berbera Cali Cumar Maxamed Cali Xorxor iyo wasiirka wasaaradda ganacsiga Umar Shucayb xildhibaano mas'uuliyiin kala tiro badan waxaana u dhacday sida tan maalintii u dambaysay waxaynu muujinay Soomaaliya soo bixi ugu ballaadhnaa kii ugu xooga badnaa baynu muujinay waynu iscabiray shaqa inoo hadhay shaqadii aynu soconnay baa inoo hadhay waa foodkii weeye codkii baynu ku reeynay weeye waa maalinta isniinta soo maaha maalinta isniinta weeye dabaaldegan maanta aynu samaynayno ka inoogu xigaa waa kuma maya waa ka guusha maalintaynu guulaysanno keenaya hooyooyinka aan carruurii qadada u karinee ilaa xilligan taagan mar labaad aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa maanta waa maalin taariikhiya waa maalin taariikhi noo leh waa maalintii ugu dambaysay kaambeynkeenna isku soo baxeenna aynu ku dabaaldegayno ninka aan colaad arag iyo cadowku weerara codna maanta kaa rabaa war macaamiyaa tahay sidaad ugu codaysaa doonina mayno xamarna naloo bedeli maayo fashaluu baan leenahay fashaluu iyo hidhuu labada weella waxaan leenahay Muuse Biixi Cabdi ha guulaysto qabyaalada ha dhacdo bulshay qoys midaad tihiin bulshay qaran wada dhashiyo qowmiyad walaalaad tihiin ninkii idin qaybiyey qas iyo buuq idin dhex wada ilaah baa qabanaya oo qasaar ula kulmaya rubiyaanu soo gal muusaanu taageerayna muuse Biixi baanu taageerayna codkaygana siinayna waxaan halkan ka sheegaya anigoo ka mid ahaa garabka xisbiga wadani markaan aragnay in xisbigaas uu ka mid yahay xisbiyada qabyaaladda ka shaqeeya waxaanu isla garanay aniga iyo rag kale oonu ka mid nahay inaanu raacno halkii ay raaceen ciddii aanu meel la joognay aanu la dhalannay ee reetolkayaha markay yidhaahdeen fashiluu markay yidhaahdeen bedeluu annaguna waxaanu nidhi fashiluu kulmiyaha guulaysto ee 10 sannadood haysta jiirkeenna ahaa waxay idinku sheegeen inay tuulada la faruga xashiishka ku daadisaan oo xumaysaan soo dhalaacayn maaha way u dhasheen oo waa yagaa lahaa inay dayraan xaq ma u lahaayeen nin kale inay u tilmaamaan miyay xaq u leeyihiin haddaba ha yeelina hana dhagaysanina nimanka hadalkoodana ha raacina muusena ha guulaysto xisbiga kulmiyana ha soo baxo madaxweyne kasta wuxuu lahaa intijaah iyo maxaan ku dhahay hawl u qabanayo Muuse Biixi Cabdi maanta intijaah iyo hawl u qabanayo ayaa ka horeysa waxa la yiraahdaa ku quusa quraanjo la yiraahdaa iyo dadka isugu soo baxay labadii maalmood u dambeeyay iyo waxaan ka soo bilaabay maanta bilaabantay ilaa maanta Hargeysa waan joogay Burcaan waan joogay Barbarana waan joogay waxaan ku soo arkay in ummadii reer Soomaaliland inteedii baneed boqolkiiba aan oran kara 80 horta waa kulmiye insha Allah waynu guuleysana guuldhaha guul Allah taala guushana waynu maalinta la codeynayo nabadgelyada waa la ilaalinayaa waa la codeynayaa wax badan oo kale la isku sheegaa ma jirto waa mahadsantihiin guulaysta salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaynu doonaynaa markay maanta aynu xafladda u qabanno xisbigeenna aynu isleenahay guushaaynu rajaynayno waxaynu u baahannahay inay magaaladan Madheera oo taariikhi ah oo meelihii halganka laga soo bilaabay ay kow ka tahay jaalkii laga jabiyey raggii mujaahidiinta uu ka yahay tababaradii iyo ciidamadii halkii weligeed saraakiishu ka soo bixi jiray halkan tahay maanta waxaynu u baahannahay inay waxbarashadeeda iyo caafimaadkeeda iyo tacliinteeda iyo wax waliba markaynu 3 cisho dhamayno ilaahay iidankii haddii ilaahay dhaa mashruuca ugu horeeya iyo hawl qabadka ugu horeeya inuu xisbigu halkan ka fulin doono haddii ilaahay yiraahdo waa Cabdi Mubarak Cabdi Rasuul telefishinka caalamka Soomaaliya Berbera